بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، weli waxaan ku dhex jirnaa suuraة البaqرة. weli waxaan gudaha uga jirnaa waxyaabihii qoyskii iyo bulshada ku saabsanaa, radaac iyo nuugmadii carruurta sida loo nuujin lahaa, sida ilaah subxaana wa tacaala uu ugu talagalay dumarka laga dhintay say u ciddo tirsan lahaayeen, dumarka asaayda saaranna sidii loola mucaamaloon lahaa baa noogu soo dembaysay. ilaahay wuxuu tilmaamay ragga korkooda inuusan dembi ku sugnayn wixii ay ku tuurtuuraan dumarka asaayda saaran ee weliba naagadoognitaan ah ama naftoodaba ay ku qariyaan, inuu isdhaho allay la heetaa markaa guursuu nafsadiisa ka dhaho, waayo ilaahay wuxuu og yahay inay xusxusaayaan dadka, laakiin si caddaana ha ugu sheegina buu yidhi ilaahay ilaa qowl macruuf ah oo sarbeeb ah inaad u dhahdaan maahane. ha u goynina gunudda nikaaxa ilaa kitaabka wakhtigiisa ka gaaro. waclamuu anna allaaha yaclamu maa fii anfusikum, ogaada waxa nafafyaalkiina ku jira ilaahay inuu og yahay subxaana wa tacaala, ee digtoonaada. waclamuu anna allaaha ghafuurun xaliimun, waxaad ogaataan ilaahay alla dembi dhaaf badan oo xaliim ahoo dulqaad badan inuu yahay. laa junaaxa dembi calaykum korkiina ma aha in tallaqtum haddaad talaaqdaan oo aad furtaan annisaa'a haween ama dumar maa lam tamassuuhunna idinkoonan weli taabanin, aw amase tafriduu oo aadan u qadarin lahunna ayaga fariidatan wax meher ah. wax meher ah oo loo sheegayna ma laha, welina wax gurigayn iyo duquul lagu sameeyey ma laha, waa la talaaqay. taa korkiina dembi ma ahan buu dhahay ilaahay. wamatticuuhunna u raaxeeya dumarkaa oo mudca siiya, wax siiya cala almuusici midka taajirkahee muusicee loo waasiciyeyna qadaruhu qadarkiisa, wax allaala wuxuu kari karoo awooddiisa ha siiya. wa cala almuqtiri midka la ciriiriyey oo aan waxba haysaninna qadaruhu qadarkiisa iyo wuxuu kari karo. mataacan mataac waaye oo bilmacruufi macruuf ah. mataac siiya qadaruhu mataacan mataac siin siiya oo bilmacruufi wanaag ah. xaqan xaq bay ku tahay cala almuxsiniina muxsiniinta korkooda. dadka muxsiniintaee wanaag falayaalka ah bacdamaa gabadhani qalbigii ka jabay waa la mehriyey, lama taaban oo lama gurigaynin. gurigaynta muhiimee xataa haddii bannaanka lagu arko oo duquul dhaco waxay la mid tahay iyadoo la gurigeeyey. wamaa lam tamassuuhunna waxay tilmaamaysaa taabasho jimaaca. aw tafriduu lahunna fariida ama aan meher loo qadarin, waa la mehriyey, wax meheroo loo cayinayna markaa ma jirto. wamatticuuhunna mataac siiya. mudcatu talaaq bay markaa leedahay cala almuusici ninka muusica ah dushiisa, hanti badan buu leeyahay, qadaruhu guryo iyo gawaari iyo dahabi hadduu siiyo waa fiican tahay. wa cala almuqtiri midka la ciriiriyeyna qadaruhu qadarkiisa, 100 shilin hadduu hayo waa inuu siiyaa. mataacan bilmacruufi waa mataac oo si macruuf ah. xaqan xaq bay ku tahay cala almuxsiniina dadka muxsiniinta ah. wain طallaqtumuuhunna haddii aad talaaqdaan dumarkii min qabli an tamassuuhunna idinkoonan taabanin waqad faradtum laakiin loo faraday. tantii hore waxay dhaantaa meher baa loo qadaray. waqad faradtum inaad u qadarteen oo loo farad yeelay, waxaal qad faradtum aad qadarteen oo aad u goyseen lahunna ayaga fariidatan meher. fa nisfu maa nuskii bay leedahay faradtum aad u qadarteen. wixii loo farad yeelay oo loo cayinay oo loo qadaray nus bay leedahay. $1 hadduu meherkeeda ahaa haddaan la gurigaynin 500 bay leedahay. meherku kaamil marka qofka naagta lagu mehriyey qabiltu uu yidhaahdo nus meher bay ayaa u kaamil noqday. haddii la duquulana meherkeeda oo kaamil ah. saa darteed buu ilaah yidhi fa nisfu maa shay nuskii faradtum aad u fardateen ood u qadarteen ayay leeyihiin, ilaa an yacfuuna inay iska cafiyaan maahane. warnima bacdamaadan itaabanin 500 baan kugu lahaayo 5tana ku tag way ku dhihi kartaa. aw yacfuwa aladii ama kii uu cafiyo biyadihi gacantiisa cuqdatu nikaaxi nikaaxa gunudiisa
iyo xarigiisa uu ku jiro waa raggiiya inuu dhaho walaale kuma taabanin $500 baad igu leedahay ayaad igu leedahay meherkaagina kun buu ahaa waa iska kaasiiyey uu dhammaan wada siiyo wa an tacfuu inaad cafisaan ragow ayaa aqrabu u aqrabsanoo u dhow litaqwa alla ka cabsiga walaa tansawu alfadla fadligana ha hilmaamina iyo dheeraadka baynakum dhexdiina ahaaday fadliga baynkiina ahaaday ha hilmaaminoo xataa haddii laysfuray suuqa haddii laysaga hor yimaado asalaamu calaykum taa isdhinac marina taa waabaan qabi jiray buu ku leeyahay waabaan qabi jiray kaa waabuu i qabi jiray xaaladda noocaasa dhaafo walaa tansawu alfadla baynakum ina allaha ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad camal qabanaysaan basiirun alla arkaya buu ahaaday xaafiduu ilaaliya cala asalawaati salaadaha shantaa dhowra oo ilaaliya waasalaati alwustaa salaada lagu magacaabo salaatu lwustaana ilaaliya waa salaada casirkee waquumuu istaaga lilaahi alla dartii isu taaga markaad tukanaysaan qaanitiina idinkoo saakitiinoo aamusan yaan lagu dhex hadlin salaada idinkoo qaanitiin ahoo rabbi adeecsan tukada markii hore salaada waa lagu dhex hadli jiray meeqa rakacaa i dhaaftay meeqaa la tukaday war ciyaalka kaban waa salaada dhexdeeda ilaa ay soo degtay buu yidhi saxaabiga waquumuu lilaahi qaanitiin umirnaa biاsukuut aamusnaana la amray wanuhiinaa cani ilkalaam hadalkana waana laka reebay salaata wustada salaada casirka inay tahay baa loo badan yahay allah ka buuxiyo qubuurtooda iyo qalbiyaalkooda naar allah ku horya buu dhahay nebiga gaalada waxay naga mashquuliyeen salaaddii wustada waa salaatulwustaa waasalaati alwustaa salaad dhexaadka waa salaada casirkee taana ilaaliya waquumuu isu taaga lilaahi alla dartii markaad tukanaysaan istaag ka tukada waa shardi shuruudaha salaada ka mid ah waquumuu lilaahi qaanitiin istaaga oo idinkoo qaanitiin ah tukada fain khiftum haddii aad cabsataanoo xarbo iyo dagaal lagu jiro oo intaad salaada u taagan tihiin aad ka baqdaan cadow inuu gadaal idinkaga yimaadana fa rijaalan tukada idinkoo rijaal ahoo lugaynahaya aw rukbaanan idinkoo gaadiidka iyo dayaaradaha iyo dabaabaadka iyo kaaraha saaran tukada fa iidaa amintum haddaad aamin noqotaan oo khowfkii iyo dagaalkii xarbadii istaagana fadkuru allaaha ilaahay xusa oo tukada kamaa callamakum siduu idiin baray maa si oo lam takuunuu taclamuunaydan u ogayn si aadan horay u ka siin habkuu idinkugu baray tukada orodna ma jiro gaadiid adoo saaranna ma aha adoo cararayna tukan maysid waad istaagaysaa waad weysqaadanaysaa qibladaad qaabilaysaa arrimooyin fara badan oo noocaas ah laakiin haddii xarb khifti jiro oo cabsi jiro qiblo ma jirto meel allaala meeshaad u cararaysood kaaraha u ridaysood dabaabaadka u tuurayso yaad markaa u tukanaysaa waaladiina kuwii yutawafawna la oodsanayay oo minkum adinka idinka mid ah raaraggiiye waydaruuna kana tegahaya aswaajan haween wasiyatan dardaaran baa ah liaswaajihim xaasaskooda ay u dardaarmaan mataacan mataac iyo raaxo ila alxawli sanad intii laga gaaro hayra ikhraajin bixitaan la'aan aayaddan waa la nasaqayoo markii hore dhaxalku andhahee asaydu waxay ahaan jirtay 1 sano wixii halkaas sano ay isticmaali lahayd oo mataacahana inay raggu u dardaarmaan baa laga rabay hayra ikhraajin mana baxaysa ayada fain kharajna haddii ay baxaan falaa junaaxa dembi calaykum korkiina ma aha fii maa facalna wixii ay ku sameeyaan fii anfusihinna nafafyaalkooda oo min macruufin wanaag ah waa isqurxintii iyo ziinadii wallaahu ilaahayna casiizun alla casiis ahoo amarkiisu qaalib yahay waaye xakiimun ee fal fiican walilmuطallaqaati naagaha muطallaqaadkee la talaaqayna mataacun mataac bay leeyihiin oo bilmacruufi macruuf iyo wanaag ah xaqan xaq bayna ku tahay cala almuttaqiina muttaqiinta dushooda ayaddan waxay tilmaantay muطallaqaad dhammaantood waxaa laga qaatay baa layidhi ama meher ha loo qadaro ama yaan loo qadarin dhammaan mataacdaa waa la siina qolana waxay dheen maya waa intaan meherka loo qadarin saan soo tilmaannay walilmuطallaqaati mataacun bilmacruufi xaqan bay ku tahay cala almuttaqiina kadalika saasoo kaluu yubayinu allaahu alla idinkugu caddaynayaa lakum adinka aayaatihi aayaadkiisa lacallakum waxaad mudan tihiin tacqiluuna inaad caqli qaadataan
inaad caqli qaadataan oo aad fahantaan oo aad garataan oo aad ogaataan ayaad mudan tihiin buu yidhi ilaa subxaanahu wa tacaala. alam tara ila aladiina kharajuu min diyaarihim, qiso yar oo dadkii hore ka dhacdaana loo tilmaamayaa. alam tara ila aladiina kharajuu min diyaarihim wahum uluufun xadara almowt. koox baa jirtay, meel bay deganaayeen. waxaa la tilmaamaa daacuun baa ku dhacay, markaasay kala carareen ayagoo geeri ka digtoonaanaya. markay cabbaar socdeen baa geeridii ku timidoo dhinta buu dhahay ilaahay. way wada daateen, kolkaasuu ilaah soo nooleeyey. geeri inaan laga carari karin ayaa marka la tilmaamayaa. alam tara, ma aragtay ila aladiina kuwii kharajuu baxay oo ka baxay min diyaarihim guryahooda wahum uluufun ayagoo kumaan ah, dhowr kun bay ahaayeen, xadara almowti geeri ayagoo ka digtoon. geeri ay ka digtoon yihiin darteed bay u carareen. faqaala wuxuu ku yidhi lahum ayagu, allaahu alla muutuu dhinta. way wada dhinteen. uma ka bacdi axyaahum alla wuu soo nooleeyey. ina allaha ilaahay laduu fadlin, fadli mid u saaxiiba ayuu ahaaday, cala annaasi dadka korkooda uu fadli yeelo. walaakina akthara annaasi, laakiin dadka badankoodu laa yashkuruuna ma shukrinayaan. dadka badankooda kuwa ilaahay u mahad celinayaa ma aha. waqaatiluu dagaalama marka, bacdamaan geeri laga cararaynin oo meel kastoo aad joogto ay kuu imaanayso, dagaalna aan lagu dhimanin, guri la jooganaan lagu badbaadaynin. dirira fii sabiili illaahi, ilaahay jidkiisa ku dagaalama. waclamuu ogaada ana allaha ilaahay samiicun, alla samiicahoo maqal badan inuu yahay, caliimun ee cilmi badan. man da aladii keebaa yuqridu allaha alla u amaahinaya qardan amaa xasanan ee wanaagsan. amaahda ilaahay la tilmaamaya waa masaakiintii mashaariicda kheyrkoo wax lagu bixiyo alla dartii oo wax loo hormarsado, oo fa yudaacifahu uu u laalaabayaa alle lahu kaa adcaafan laalaabid kahiiratan ee fara badan. wallaahu ilaahayna yaqbidu waa laabaa oo wayabsudu waa fidiyaa. qofkuu doona waa ku ciriiriyaa, qofkuu doonana waa u fidiyaa. wa ilayhi xaggiisaana turjacuuna laydin celinayaa. meeshaad u laabanaysaanoo arrimahoo dhan ay u noqonayaanna waa ilaahay xaggiisa. alam tara ila almala'i min bani israa'iila, alam tara ma aragtay rasuulkii allow ila almala'i, mala'dii xaggooda iyo kooxdii oo min bani israa'iila, reer bani israa'iil ka mid ahaa, min bacdi muusaa, nebi muuse gadaashii. nebi muuse kadib bay ahayd, id waqti qaaluu ay u dhaheen linabiyin, nebi oo lahum ayaga u sugnaaday, shamcuun baa la yidhaahdaa baa la yidhi, ibcad noo soo saar oo noo soo bixi lanaa anaga melikan boqor, nuqaatil aan dagaalanne, fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa aan ku dagaalanne. nebiyow noo soo bixi hogaamiye iyo maamulo boqor ah, nuqaatil aan dirirno, waan dagaalamaynaa fii sabiili illaahi baan ku dagaalamaynaa. qaala wuxuu ku yidhi nebigoodii, hal casaytum ma mudan tihiin in kutiba haddii la qoroo lagu waajib yeelo calaykum korkiina alqitaalu dagaalka, allaa tuqaatiluu inaydan dagaalamin, inaad diiddaan. haddana hadda idinkaa codsanaya, haddii laydinku farad yeelo amaad diiddaan. qaaluu waxay dhaheen, wamaa lanaa maxaa xaalkeennu yahay, alla maxaa noo sugnaaday, allaa nuqaatila aanana u dagaalamaynin fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa, inaan ku dagaalami weyna jidka alla maxaa noo ahaadoo noo sugnaaday. waqad ukhrijnaa, ayadoona la soo saaray, ina la soo bixiyey baa xaqiiqaha min diyaarina, guryaheenna, wa abnaa'ina iyo ilmaheennaaba nala ka soo saaraye saan u dagaalamaynin. falammaa markii kutiba la qoray oo lagu farad yeelay calayhim korkooda alqitaalu dagaalkiina, tawallow way jeesteen, ilaa qaliilan in yar oo minhum ayay ka mid ah maahane. wallaahu ilaahayna caliimun, alla ku cilmi badan buu ahaaday biaalimiina kuwa daalimiinta ah. wa qaala wuxuu ku yidhi lahum ayaga nebiyuhum, nebigoodii, ina allaha ilaahay qad bacaa wuxuu soo saaray lakum adinka taaluuta, ninka taaluud la yidhaahda ayaa melikan boqortinimo laydinkugu soo saaray. melig iyo maamulo iyo inuu abbaanduulo idiin noqdo idin maamulo, taaluud baa laydinku soo bixiyey. qaaluu waxay dhaheen, annaa sideebaa yakuunu uu u ahaanayaa lahu asaga waa taaluude almulku
mulki iyo maamul calaynaa korkeenna wanaxnu anaguna waxaal naxnu anaguna aan nahay axaqu kuwa ku xaqnimo badan annagaaba uga xaqnimo badan bilmulki mulkiga iyo maamulka minhu asaga xaggiisa laangaab way ula jeedaan dad wax maamuli jiray ma aha annagaaba mulkiga iyo maamulka uga awliyasane sidee korkeena u maamulaa taaluud walam yu'ta lama siinin sacatan deeq iyo waasictinimo oo min almaali xagga xoolaha iyo hantidana wuxuu ka haysta male waa faqiir qaala nebigoodii wuxuu yidhi ina allaha astafaahu ilaahay baa u doortay asaga inuu boqor noqdo calaykum korkiina wasaadahu wuxuu u kordhiyey ilaahay basdatan fidin oo filcilmi xagga cilmigii khibradda dagaalkuu aad u yaqaanaa iyo waljismi xagga kartidii xoogga jisimkiisana waa adag yahay wallaahu ilaahay yu'tii waa siiyaa mulkahu mulkigiisa man yashaa'u qofkii uu doono wallaahu ilaahayna waasicun alla deeqdiisu ay waasic tahay buu ahaaday caliimun ee cilmi badane xaaladdaana way la yimaadeen wa qaala wuxuu ku yidhi lahum ayaga nebiyuhum nebigoodii wuxuu ku yidhi inna aayata mulkihi mulkigiisa maamulkiisii boqortinimadiisa aayaddeeda waxa waaye an ya'tiyakum inuu idinla yimaado attaabuutu sanduuq fiihi uu ku sugan yahay sakiinatun xasillooni oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay wa baqiyatun iyo harharaa waxyaaba baaqi ah oo mimaa kii baaqi ka ah taraka ay ka tageen aalu muusaa muuse ahalkiisii wa aalu haaruuna haaruun ahalkiisa taxmiluhu xaalay xambaarsan tahay ayadoo ay soo xambaarsan tahay soo wado almalaa'ikatu malaa'igta inna fii daalika arrintaa la aayatan aayad baa lakum adinka idinkugu sugan ee qaata in kuntum mu'miniina kuwa mu'miniin haddaad tihiin waxaa la tusayaa ninkaasi boqortinimadiisa calaamadeeda iyo waxa tilmaamaya inuu markaa yahay wa qaala lahum nebiyuhum nebigoodii wuxuu ku yidhi inna aayata mulkihi taaluut boqortinimadiisa aayaddeeda an ya'tiyakum attaabuutu taabuutkan waxaa layidhi waa sanduuq oo mar allaala markay dagaalami jireen ayaga way soo qaadanayeenoo ciidankaa la dhexdhigi jiray kadib bay guulaysan jireen mar walba sidaa darteed ayaa sanduuqaasi laga dhacayoo laga qhaniimaystoo laga qaatay kiibaa dib laydinku soo celinaa fiihi waxaa ku dhex sugan sakiinatun xasillooni oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatii wa baqiyatun waxyaabo baaqi oo harharay oo mimaa taraka aalu muusaa wa aalu haaruuna muuse iyo haaruun aalkoodu ay ka tageen waa muuse iyo haaruun laftigoodii cimaamaddii nebi haaruun iyo ushii nebi muuse waxbaa la tilmaamaa inay ku jireen taxmiluhu almalaa'ikatu malaa'igtunay xambaarsan tahay malaa'igtii baa intay soo qaada keenaysa inna fii daalika arrintaa la aayatan aayad baa lakum adinka idinkugu sugan in kuntum haddaad tihiin mu'miniina huwa markaa mu'miniin ah falammaa markii fasala uu soocmay uu la baxay taaluutu boqorkii taaluut ahaa biljunuudi ciidankii qaala wuxuu yidhi ina allaha ilaahay mubtaliikum wuxuu idinku imtixaamayaa binaharin webi aad baa loo oomay dhul dheerna waa la soo socday webi baa idinka hor imaanayaa layidhi waa imtixaan qof biyaha ka cabi kara ma laha qof kasta waa inuu webigaa gudbaa faman shariba qofkii ka caba minhu webigaa xaggiisa falaysa minii ani iga mid ma aha ciidankayga wuu ka harayaa waman lam yatcamhu qofkii aansa ka quudanin aan ka cabin baa loola jeedaa webiga fa innahu asagu minii aniguu iga mid yahay laakiin maxaa laydin ogol yahay ilaa man iqhtarafa qof darsaday maahane ghurfatan darsasho hal mar oo qarafaysioo sacabkaaga intaad ku soo qaada biyaha afka aad ku shubato dhuunta lagu qooyo maahane wax kale oo laydiin ogol yahay ma laha ilaa man ikhtarafa ilaa qofkii qarafaysta oo darsada ghurfatan darsasho biyadihi gacantiisa maahane fa sharibuu way ka cabeen minhu webigii xaggiisa amarkii bay inkireen aad bay u oonaayeen oo way daalanaayeen sidaa darteed buu ilaah yidhi fa sharibuu minhu way ka cabeen xaggiisa ilaa qaliilan in yar oo minhum ayay ka mid ah maahane falammaa markii jaawazahu uu la gudbay webigii uu la gudbay huwa asaga waa taaluut iyo waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu asaga micigiisa waa intii webiga hal mar ka darsatay oo amarkiisii qaadatay ayuu la gudbay intii kale meeshaa looga tegay qaadhuu waxay dhaheen way yaraadeene
laa taaqata awood lanaa annaga nooguma sugnaanin oo uma lihin alyawma maanta bijaaluuta jaaluud ninka lagu magacaabo iyo wa junuudihi ciidankiisa. ciidankan muslimiintana waxaa hogaaminaya taaluud, kuwa cadowga ee gaaladana waxaa hogaaminaya jaaluud. marka kuwii taaluud markay wax badan yaraadeen oy biyihii cabeen oo in yar ay soo hareen waxay dhaheen maanta iskama celin karni, taaqa iyo awoodna uma lihin inaan la dagaalanno bijaaluuta wa junuudihi, jaaluud iyo ciidankiisa. qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen yadunnuuna yaqiininahayay oo malaynahayay annahum ayagu mulaaqu llaahi inay ilaahay la kulmayaan, kam min fi'atin kam meeqa oo min fi'atin koox ah, qaliilatin oo yar, halabad ka guulaysatoo ka adkaatay fi'atan kaiiratan ciidan badan. ha cabsanina hana welwelina, haniyad jebina, waayo ciidan yar ayaa wax badan waxay ka adkaan jireen ciidan fara badan biidni illaahi, ilaahay idinkiisee sabra, wallaahu ilaahayna maca asaabiriina, kuwa saabiriintee sabra ayuu micigooda yahay. sidii bay yeeleen, way dhaqaaqeen. walammaa markii barazuu ay u soo muuqdeen, ay u soo bannaan baxeen lijaaluuta jaaluud iyo wa junuudihi ciidankiisa, waa laysku hor yimid, waa laysku soo muuqday. qaaluu waxay dhaheen ciidankii taaluut, rabbanaa rabbigeenow, afriq shub calaynaa korkeenna sabran, ilaw sabar nagu soo daadi, wathabbit allow sug aqdaamana gondaheennana ilaahayow sug, wansurnaa nooga gargaar cala alqawmi alkaafiriina, qoomka kaafiriinta dushoodana ilaahayow nooga gargaar. labadii ciidan baa iska hor yimid, ciidankii taaluud iyo ciidankii jaaluud. mar allaala markay iska hor yimaadeen, ciidankii jaaluud way badnaayeen, ilaan ciidankii muslimiintaee taaluud watay waxay in badan ku soo hareen oo ay ku dhaceen imtixaankii. biyihii webigaha cabina la dhahay bay cabeen, sidaa darteed baa wax badan oo ayaga ka mid ah meesha ku soo haray. waatay mar allaala markay isku soo kuwii ay hareen ay dhaheen intii yareed laa taaqata lana alyawma bijaaluuta wa junuudihi, ciidankii taaluud iyo ciidankiisaba iskama celin karni, waan yarnahay, way naga awood badan yihiin. laakiin waxaa niyadda u dhisay kuwii danninayay oo yaqiinsanaa in mar kasta ilaahay la kulmaayo, in ilaahay lala kulmaayo. markaasay dhaheen kam min fi'atin qaliilatin halabat fi'atan kaiiratan biidni illaah, meeqa ciidan yar oo ciidan badan ka adkaatay ilaahay idinkiisa. wallaahu ilaahay maca asaabiriina, saabiriinta micigooda ayuu ahaaday. walammaa markii barazuu ay u soo muuqdeen litaaluuta wa junuudihi, jaaluud iyo ciidankiisay iska hor yimaadeen. jaaluud waa ciidankii acdaada ahaa ama cadowga ahaa ama gaalada abbaanduulahooda, iyo ciidankiisiiba qaaluu waxay dhaheen kuwii mu'miniinta ahaa, rabbanaa rabbigeenniyow, afriq ilaahayow shub calaynaa korkeenna sabran, sabarka ilaahayow nagu badi, macnaha nagu soo daadi, dad sabroo adkaysta ilaahow naga dhig. wathabbit allow waxaad sugtaa aqdaamanaa gondaheena, ilaahow lugaheennana sug, wansurnaa waxaad nooga gargaartaa cala alqawmi alkaafiriina, qoomkii kaafiriinta ahaa. qoomka kaafiriintana ilaahayow nooga gargaar. markaysaa u ducaysteen ayaa fooda laysgalay, fahazamuuhum way jebiyeen, fahazamuuhum ciidankii taaluud ee muslimiinta way jebiyeen, oo waxay jebiyeen ciidankii jaaluud ee cadowgooda ahaa biidni illaahi bayna ku jebiyeen, ilaahay idinkii, ilaahay idinkiisay ku jebiyeen. waqatala wuu dilay daawuudna jaaluuta, jaaluud buu markaa dilay. waxaa meesha laga tilmaamayaa nebi daawuud inuu ku jiray, kana mid ahaa ciidankii taaluud. intaan markaa nebi laga dhigin ayuu ciidankaa taaluud ku dhex sugnaa. mar allaala markii laysdaray oo dagaalkii laysaga hor yimid, nebi daawuud ama daawuud oo ku jiray ciidankii taaluud, askartiina ka mid ahaa, ayaa wuxuu dilay jaaluud oo abbaanduulihii ciidanka gaalada markaa ka mid ahaa. fahazamuuhum way jebiyeen biidni illaahi, ilaahay idinkiisay ku jebiyeen. waqatala wuu dilay daawuud waxaa loo badan yahay inuu nebi daawuud ahaa calayhi assalaam. jaaluud ayuu dilo, saan soo tilmaannay, abbaanduulihii gaalada ahaa. wa aataahu allaahu, ilaahay daawuud wuxuu siiyey almulka, mulki iyo walxikmata xikmad. wa callamahu wuxuu baray mimaa yashaa'u, wax allaala wixii uu doonay, wixii ilaahay uu doonay ayaa markaa la baray.
idan inuu nebi daawuud ahaa ayaa meesha tilmaamaysaa. wa aataahu allaahu almulka waalxikma, idan hoos bay noogu imaan doontaa markuu ilaahay tilmaamayo subxaana wa tacaala isbir calaa maa yaquuluuna wadkur cabdanaa daawuuda da alayd inahu awaab inaa sakharna aljibaala macahu yusabbixna bilcashiyi waalishraaq waطayra maxshuura kullun lahu awaab washaddadnaa mulkahu waaataynaahu alxikmata wafasla alkhitaabi. idan nebi daawuud baa lagu tilmaamay wa aataahu allaahu almulka, ilaahay nebi daawuud mulki buu siiyey, mulki iyo maamul buu alla isugu daray, iyo waalxikmata, xikmad buu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala. wacallamahu mima yashaa'u, wixii alla uu doonay ayuu baray daawuud, ama wixii ilaahay uu doonay ayuu daawuud ilaahay baray. walowlaa dafcu allaahi, hadduusan ilaahay ku reebeen kuna difaaci lahayn annaasa dadka bacdahum qaarkood bibacdin qaarka kale lafasadat alardu, arladu way fasahaadi lahayd. qolaba markii damacda inay madaxa kor u taagto qoluu alla ka horgeeya subxaana wa tacaala. waxaa noo imaan doonta walowlaa dafcu allaahi annaasa bacdahum bibacd lahuddimat sawaamicun wa biyacun wa salawaatun wa masaajidun yudkaru fiiha smu ullahi kaiira. sawaamic, masaajido, salawaat, intaasaa la burburin lahaa hadduusan ilaahay dadka qaarkood qaarka kale ku reebeen. walowlaa dafcu allaahi, hadduusan ilaahay ku difaaceen uusan ku celin lahayn annaasa dadka bacdahum qaarkood bibacdin qaarka kale lafasadat alardu, arladu way fasahaadi lahayd. walaakina allaaha, laakiinse ilaahay duu fadlin, alla fadli u saaxiib ah ayuu ahaaday cala alcaalamiina, caalamka dushiisa. koonkan ilaahay inuu fadli yeelo ayuu ugu talagalay. xaaladdaa haddaysan jiri lahayn arladu way fasahaadi lahayd, dhibaato badan baa imaan lahaa, mashaakil fara badan baa markaa dhici lahayd. walowlaa fadlullaahi, ilaahay fadligiisaa ahaaday mee hadduusan ahaan lahayn fadligaasoo walaakina allaaha dheh, laakiinse ilaahay duu fadlin, alla fadlisiin iyo ziyaado iyo dheeraad ku sameeya buu ahaaday cala alcaalamiina, caalamka dushiisa. tilka taasi aayaatullaahi, waa ilaahay aayaadkiisa, natluuhaa, waan aqrinaynaa calayka, korkaagaan ku aqrinaynaa rasuulkii allow bilxaqi, ayadoo dhab ah. sheeka xariir ma ahee waa qisooyin iyo aayaad dhab ah, cadcad oo run ah. wa innaka adiguna la mina almursaliina, mursaliintaad ka mid tahay rasuulkii ilaahayow. adigana mursaliinta iyo dadka la soo diray nebiyada ah mid ka mid ah ayaa tahay. waxaan aan sheegayno, qisooyinkan dhacay, arrimooyinkan aan kuu aqrinayno, korkaaga lagu aqrinayo, adigu ma aadan joogin, goobjoogna ma ahayn. waa qisooyin xaqiiqaa oo dhab ah, sida ilaahay tilmaamay laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab maa kaana xadiidan yuftara, ma aha sheeko la been abuurtay, walaakin tasdiiqa aladii bayna yaday, kii horeeyey wax rumaynahaya waaye. tilka taasi aayaatullaahi, ilaahay aayaadkiisii waaye. natluuhaa, waan aqrinaynaa rasuulkii allow aayaadkaa alle calayka, dushaadaan ku aqrinaynaa, adaan kugu dul aqrinaynaa. aayaadkaa allaan ugu talagalnay inaad ummadda gaarsiiso, inay ayagu dhowrsadaan, inay ayagu qaataan, inay wax badan wax ku fahmaan. waayo qisooyinka mar allaala marka ilaahay uu noo tilmaamayo, noo sheegayo, cibraa loogu talagalay. faqsus ilqasas, qisooyinka u sheeg say ayaguna u fakaraan buu dhaha ilah subxaana wa tacaala, say u caqli qaataan. tilka taasi aayaatullaahi, ilaahay aayaadkiisii waaye. aayaatullaahi, waa alla aayadihiisa. natluuhaa, waannu aqrinaynaa aayadahaana calayka, korkaagaan ku aqrinaynaa rasuulkii ilaahayow bilxaqi, si xaq ah ayaan kugu aqrinaynaa, ama ayagoo xaq ahoo xaqnimo ku dheehan baan aayaadka alla kugu aqrinaynaa. wa innaka adiguna la mina almursaliina, mursaliintii la soo diraad ka mid tahay, rusushii ilaahay soo diray mid ka mid ah ayaa tahay. ma tihid maa kunta bidcan min alrusul, mid bidci ahoo rususha lagu bilowday. rusul baa kaa horayn jirtay, waa la beenin jiray, way sabri jireen, ciribta iyo guusha dambaa alla siin jiray subxaana wa tacaala.
natluuhaa waan aqrinaynaa calayka dushaadaan ku aqrinaynaa bilxaqi ayadoo xaq iyo dhab ah wa innaka adiguna la min almursaliina mursaliintaad ka mid tahay rasuulkii ilaahayow tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacd wabiاllahi الtawfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.